Cabdijibaar Muxudiin Aweys waa macallin dugsi Quraan oo ku nool degmada Buur-Xakaba ee gobolka Baay, waana curyaan aan haysan daryeel caafimaad iyo tan nololeedba. Dugsiga Qur'aanka uu ka dhigo milki ahaan ma aha mid isaga uu maamulo, balse waa caawiye oo ka raadsada nolol maalmeedka. Cabdijibaar waxa uu la nool yahay qoyskiisa oo danyar ah, inkastoo aan ifka ku noolayn hooyadii iyo aabihii, ayeeyadii koowaad iyo midda labaad oo hooyadii dhashay oo waayeelo ah ayuu la nool yahay. Waxaan ku booqday hoyga uu ka degan yahay Buur-Xakaba, waxa uuna iiga sheekeeyay nolosha uu ku nool yahay. Bismillahirrahmanirrahiim. Anuu magacayga leeyahay Cabdijibaar Muxudiin Aweys, degmada Buur-Xakaba ku nool, maalin dugsi ahaa. Dugsigiina waalidiintu iska dabar daranta. Asina maana may faday intaan walaayin qowada doqodo awoodey doqodo kali iyo ay kuriijeen idaasa ku nool aadey oo kay dhimidan wal ana hada gacantay ka jiraan male dugsigiina warsaatay male ka haajida id oo aan tawar liyan inta soo mahaajida iska tawar daranya ma aan baahanahay intii oo idaan ku nool intii wali inka dhis إلهي عجاري حسنات إلهي سينكسيا. Macallin Cabdijibaar Muxudiin waxa uu noloshiisa uu ku haminayo inuu horumar ka gaaro maadaama uu yahay qof curyaan ah. Waxa uu sidoo kale uu sheegay in uu rajaynayo horumar badan. Macallin Cabdijibaar oo xaafidul Qur'aan ah ayaan haysan hooy fiican oo uu ku hoydo. Waxa uu bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ka codsaday inay gacan qabtaan.